يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون درسينو ما أنت وكبل لابنا آيات بقول يكونتون يشانات سورة البقرة الله وحليه سبحانه وتعالى ولنبلونكم أي والله لنبلونكم ضضوا وإذن امتحامينا وإذن جربينا بشيء وحيان إذن كو امتحامينا ومن الخوف عبسي كمدا والجوع قاجة كمدا ونقص ونطال ومن الأموال هنتدى حقه إذا الذين كقليو أيان إذن كو امتحامينا والأنفس نفاها حقه ذا نطال الذين كقليو أيان إذن كو امتحامينا والثمرات مراها حقه ذا نطال الذين كقليو أيان إذن كو امتحامينا لكن وبشر الصابرين ضدك صبراء بشاري نبي محمد الذين صابرين تؤ بشاري إذا أصابتهم هديها لشو مصيبة وحيابات لباه ومصيباه قالوا دهاي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا نو لله إلهي أيان أصبنا عني وإنا نونا إليه الله حقي سراجعون الله بنا إنا دهاي أولئك قوة ساكت المامن وصابرين تأه عليهم كركو ذوحا هذا صلوات أمانه ومن ربهم رب قد حقيسا كأهذا يا ورحمة نحريس أي كركو ذا أهات وأولئك قواسنا هم أيو المهتدون وكوي هنوني وعكسوا ذكرني تفسير كي سورة دي أهات سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ماشى نحوه ورمي إن ضدك الله امتحام أيه وآمنا هذي دهان عن أنت سلوجات جينين ووحيابه دبكوا نفته ذا أما مالكوا ذا دبكوا لقوا امتحام أيه والله حنوتشنا يدتك أنت اللي قال لي أنا أيت هاي امتحان كاس إن للربو إن ضدك يقول كلام بحانه ضدك قارنا إن غضان ضد القاتا وامتحانك كوباسا ضدك قارنا أي نقدان ضد القادة وعي وامتحانك كودعة ويا باص لسكوا امتحانا وحكم إذا عبسي الله عبصده النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة سينا عبسي دانو هذا الله امتحامي محيي لي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ضدك لما المشركين وقريش المشركين تهي أيها النبي قال لك صدح ساري عليه الصلاة والسلام عداديس فربضان أيها النبي قال العدادي عليه الصلاة والسلام dhibaatooyin fara badanna waa loo geystay oo dadkiisii iyo tolkiisii u geystay inamankii gaalada ahay ka dhashay kadibna markii dadkii qaar kamiduhu ay rumeeyeen dadkii rumeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo nabigaba magaalada Makka waa lagu dhibaateeyay waagi dambana magaalada Makka way iskaga soo carareen nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii magaalada Makka ku sugnaa magaalada Madiina markay yimaadeenna magaalada Madiina laftirkeeda cabsi la'aan looguma imaan oo waxa ku soo duuli jiray magaalada Madiina nimankii mushrikiinta ahaa oo reer Quraysheed iyo carabtii kale qaar kamid hooy soo gaashaan buursadaan oo ay soo wataan markaas magaalada Madiina waxay ahaa jirtay culu joogi ahaa jirtay hadii gurdanka fardaha la maqlo ama jugu yeerto ama qayladaan la maqlo dadka dhamu dhigay taagayeen
waxay u qaadanayeen in col soo weeraray magaalada waxaa kaloo nabiga la deganay calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina niman yahuud ah oo cadow ah oo col ah hubka noocyadiisa kala duwan iyo hubkii waagaas lagu hubaysnaana ku hubaysan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina la deganaa munaafiqiinna way la joogeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidka ayay kula tukanayeen cabsiyo fara badan ayaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa soo food saaray sidoo kale waxaa dadka lagu imtixaamaa wax gaajada ka mid ah dadka abaara lagu sallada markaasaa guryaha wax laga karsadaa la weyna gaajadaana nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa aada loo dhadhansiiyey ilaa nabigu uu gaaray calayhi salaatu wasalaam inuu marmarka ka mid a caloosha dhagxaan ku xirto gaajo darteed inta caloosha isku dhex dhacdo wuxuu gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu intuu gurigiisa gaajo kula jiri waayo uu bannaanka iskaga soo baxo asagoo hehaabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kadibna uu bannaanka ku arko abubakrin iyo cumar oo laftirkooduna gaajo la hehaabaya oo gaajo guryahooda kula jiri waayo nabiguna markuu warsaday calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi oo uu yidhi maxaa idin soo saaray xilligan waxay u sheegeen inay gaajo guryahoodii kula jiri waayeen nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii adinka idin soo saaray ayaa anigana isoo saaray haddii raggii xoogga lahaa iyo odayaashii ay guryaha gaajo kula jiri waayeen maxaad u malaynaysiin marastii iyo dumarkii iyo carruurtii maxaa u malaynaysiin waa min baabi owla saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa gaajo darteed inay istaagga ay ka dhacaan ee dadka reer miyiga ahu markay arkaan ay surka inta cag ka saaraan ay yidhaahdaan waa majnuun jinniyow qabaa waa falan inay yidhaahdaan sida abu hurayra oo kale radia allahu tacaala canh sidoo kale dadka waxaa lagu imtixaamaa waxyaaba ku saabsan beeraha oo ka ba'a ama beeraha qaar ka mid ah oo ka ba'a iyo beertiiyo u soo bixi weysay sidii la rabay inay u soo baxdo waxaa kaloo la isku imtixaamaa nafta in dhantaa la iska gelisho oo dadkaa dhintaan ama nafta qaar ka mid ah iyo xibnaha jirka qayb ka mid ah qofka laga dhantaalo oo ama indhaha laga qaato ama gacmaha laga qaato ama lugaha laga qaato oo jirkiisa la dhibaateeyo laakiin allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ha loo bishaareeyo dadka dulqaata oo masiibadu markay ku dhacdo qadarta aqoonsada oo yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii markii masiiba ku dhacday yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kadibna yidhaahda ilaahayow masiibada ajir naga sii wixii naga baxana wax ka khayr badan noogu bedel ilaahayow qofkaas ilaahay musiibadaasna ajru ka siinaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo u sabray ducadaasna uu akhristay markuu u sabray kadib sidoo kalena wax ka khayr badan ayaa ilaahay ugu bedelaa wixii uu ka qaatay umu salama radia allahu tacaala canha gabadha la yidhaahdo oo saxaabadii nabiga ka mid aheed ayaa waxay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo hadalkaan lahaan maqlay kadibna musiiba ugu dhacdo ninkaygii abu salama aha ayaa geeriyooday markaasaan waxaan dabaqay tidhi hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ducadiiyaan akhristay anoo weliba isleh oo ku sheekaysana abu salama wax ka khayr badan miyaad heli doontaa kadibna ilahay wuxuu qadaray tidhi in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu guursado oo abu salama iyo dadka dhammaantoodba ka khayr badan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka qofka waxaa la rabaa hadday wax ku dhacaan inuusan argagixin inuusan maryaha dildilaacin ciidda inuusan isku bululujin inuusan barooran inuusan ba'ayaysan inuusan isniyad jebin inuusan ismarjin inuusan dab isku dhejin inuusan balaaye iyo waxaan fiicnayn inuusan u yeerana loo baahan yahay ee uu yidhaahdo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun qofka markii loo tacsiyeeyahana haddii masiiba ku dhacdo waxa loogu tacsiyeeyaa waa in qadartan la xusuusiyo oo la yidhaahdo waxa lagaa qaatay iyo waxa kaa baxay dhammaantood yaa iska lahaa allah iska lahaa subxaanahu wa tacaala wuxuu qaatana ilahay walba asagaa iska lahaa waxa hadda ku harana ilaahay asagaa iskale adigana ilaahay asagaa iska leh inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta kullu shay indahu bi ajalin musamma iska dulqaado marka waxaana xilligoodii ku baxeen qadaray ku baxeen waxaana waqtigoodii ma dhaafeen qofku waa inay istiraahdaa la rabaa oo qofku dulqaato ee inuu argagaxo sax maaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inama asabru cinda sadmati luulaa iska fiiriya meeshaas sabr waxaa jira yidhaha sabru lbahaa'im xayawaanka waad aragteen dameerka haddii canugiisu baktiyo ama saca canugiisu baktiyo
cabaaru cabaadahu qayliya ma dulqaato marka u dambaydana waa iska sabraasu iska taga soo baqtiga canugiisa kor joogo haddii marka sabarkaadu sabarka bahaa'imtaas iyo xayawaankaas oo kale uu noqdo sabar aad ajir ku leedahay ma wiila ka dhintay gabara ka dhimatay hantidii ka gubatay masiiba kugu dhacday waxaad barato oo qaylido oo ismadluumido oo dhibaato isku rido ayaad markii dambe waxa tiri waa iska dulqaat mar xirey fadal kala dhaceen goor ahayn aad tiri waa iska dulqaadkaasi dulqaadkii ajirka aad ku yeelanaysay ma aha dulqaad sax ma kaas awal baa ku qasbaneed midkaas inaad sheegan aad iska laqdo waad ku qasbaneed si qofkii ka dhimatay soo ma cili kartide nabigu kaleey salaatu wasalaam gabar wuxuu yimid qabriga agooyees markaas nabigu wuxuu ku yiri ilaahay inta ka cabsatay iska sabar gabadhu markaas ma oga cid la waramaysa nabi maxamed inay tahay ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati musiibada anigu ugu dhacday laguma siibine ordayga tagay tir inuu nabigu yaana ma oga kadib markii nabigii tagay kaleey salaatu wasalaam ayaa gabadhii waxa la yiri cidii aad la hadlaysay hadalka ka kana aad ku tiri iska dul qaadana iyadu ku laheed nabi maxamed ay ahayd kaleey salaatu wasalaam cirkiya ku soo dumay gabadhii musiibadii horeba tana uga daran canugeedii dhintaba tana uga daran iyadoo rooreey nabiga u timid kaleey salaatu wasalaam markaas waxay tiri nabi ilaahay hadan sabra markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam inma sabru inda sadmati alula qacda koobaad ayaa laga rabaa sabarka laakiin xilligan marad waxa diireed tiri marad waxa sameeyay samays ina tiri hadan sabra sahma allah marka wuxuu leeyahay wala nabluwannakum wallahi la nabluwannakum baad ku imtixaamayna dadu bi shay'in wax oo yar oo min al-khawfi absida kamida iyo waljuuci gaajada kamida iyo wanaqsin dhantaal xageed ka ahaaday oo min al-amwali xoolaha la idinka gelina xoolaha qaar kamida idinka ba'ay dukaanka gubanaaye xoolaha ka qasaaraye geela ka la'anaye xoolaha wax kaaga dhacaya iyo wal anfusi nafaha xageedan nuqsaan ka ahaatay ayaa la idinku imtixaama ilmiga idinka dhimana qarabada idinka dhimane ama xibnihi jirka qaar kamida go'ay iyo wathamarati miraha xagooda dhantaal ka ahaatay ayaa la idinku imtixaama ee wabashiri saabiriina dadka dulqaata u bishaaray nabi maxamedu alladina kuwa soo ida asaabatuhum haday haleesho musiibatun mid waxaleeshahi oo dhibaato ahi qaalu dhahayay inna lillahi annaga dhani ilaahi ayaan u sugnaanay ilaahi ya asakaanale adooma ilaahi ayaana wa inna annaguna ilaahi allah xaqiisa ayaana raajicuuna ku laabanay ulaa'ika kuwaas alayhim dushooda waxa ahaaday salawaatun amaano oo min rabbihim rabbigood xaqiisa ka ahaaday ilaahi ayaa malaa'ikta ku agamaana iyo warahmatun naxariis ayaa kuwaas korkooda ahaatay oo alle xaqiisa ka ahaato ilaahay uu naxariisana wa ulaa'ika kuwaasina hum ayagu almuhtaduna wa kuwi hanuunsana hadii qofka musiibo ku dhacdo haduu dul qaatay haduu soo dul qaadanba wixii ku dhacay waa ku dhaceen marna ka badbaadi maayo laakiin kan dul qaatay kan dul qaadan wuxuu kala duwan yihiin midna ajira la siina midna waa bila ajir mid masiibadii iyo wixii ku dhacay wax oo uga sabro ayaa loogu bedelaa midna loogu bedeli maayo inna safa burta safa leeyra iyo wal marwa mid kale oo marwa ah min sha'aa'irillahi diinta ilaahay calaamadaheeda ayay kamid yihiin faman hajja albayta qofkii marka kacbada u qasda oo xajiya aw i'tamara ama umraysta fala junaha alayhi korkiisa ma ahaanin wax dambihu an yatawafa bihima inuu labadooda tawaafo sa'i ku sameeyo dhexdooda waman tatawwa qofkii kororsada khayran khayr ya wanaag fa inna allaha ilaahi shaakirun wa kii qofka u shukrinaya oo caliimun ilmi badan allah subhanahu wa ta'ala meesha waxa looga waramay wax ku saabsan sa'iga la sameeyo safa iyo marwa inta u dhaxayda safa iyo marwa waa laba buurood oo kacbada agteeda ku yaala inta u dhaxaydana waxa sharciya hadii ama la xajid tago ama la umraysa tago in sa'i 7 jeer lagu sameeyo safa laga bilaabo sa'igaas markii marwa la tago hal xaba laga dhigo marwa markii laga soo laabtay safa lagu soo laabtana mid labaad la tirsado saas lagu wado ilaa 7 ay kaaga dhamaanayso waxaana jideeyay oo looga dayday gabadhii Haajara ahayd oo nabi Ismaaciil alayhi salatu wasalaam hooyadiis ahayd oo xaaskii nabi Ibraahim ahayd alayhi salatu wasalaam gabadhaas iyo wiilkeedii Ismaaciil oo canug yar ah ayaa nabi Ibraahim alayhi salatu wasalaam
wuxuu keenay magaalada Makka iyo Kacbada agteeda iyo Safa iyo Marwa meel u dhow kadibna waa uu ka tagay xogaa yaroo sahay iyo saad ah oo raashin ah oo dambiil ugu jira iyo xogaa yaroo biya oo weel biyaha lagu shubto ugu jira ayuuna uga tagay Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalaam gabadhaasi wiilkeeda markii dambe gabadhii wiilkii waxa ka dhamaaday biyihii ay cabi lahaayeen waa oomeen labadoodii laakiin wiilkii yara ayaa oonku u daraaday hooyadii waa beer wax dhalee canugii fiirso weyday oonkiisa iyo dhibaatada canuga hayday fiirso weysa kadibna waa iska carartay markaasay wuxuu carartay buurta Safay martagta way fuushaa wax dad hay fiirida haday weydo hadana way ka soo degtaa mar way tagay waa ay fuule hadana wax dad hay fiirinaysa ay wax bidhaana oo canuga biyo uga raadiso ayadoo saas ku jirta gabadhii oo dhiban canugiina uu haraadsan yahay nafna uu yahay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala malagu soo diray kadibna malagii wuxuu bajiyay ceelka samsamka la yiraahdo oo biyaha samsamka hadda laga keeno ayuu bajiyay ceelkiya gabadhii wiilkiiba ka wabxeen waagi dambana waxa la sharciyay sida gabadhuba ugu dhex ordayday iyadoo dhibaataysan oo ooman labadan buurood oo Safa iyo Marwa ah qof walbo ama xajida ama cumraysataahi Safa iyo Marwa inta u dhaxayda inay socoto socod caadi la soconaya ilaa waadiga calooshiisa laga gaaro meesha hadda layrarka cagaaran lagu xiray ama guduudan markii halkaas la marayo ayaa ninka ragga waxa loo sunneeyaa inuu ruucla sameeyo ama uu saamboobo ama xoogaa wax orod u dhow oo sameeyo gabadhu laakiin sidii iska soconaysa Allah markuu xuliyay subhanahu wa ta'ala qofkii xajiya ama cumraystaahi wax dambiyo korkiisa ma ahaanin hadii Safa iyo Marwa uu sa'i ku sameeyo wax dambiyo korkiisa ma ahaanin maxaa laga wadaa ma wax laga tagi karaa wax laga tagi kara maaha oo ka tagi karo qof ama xajiyay ama cumraystay sa'igaas waa waajib sa'igaas ama waaba rugni iyo culimada qaar rugniye gaarsiiyeen oo xajna ansixi maayo asaga laanti umrana ansixi mayso sa'igaas laantiis laakiin saatan waxa ayada loogu cabiray dhaheen culimadu nabiga kaleey salatu wasalaam ayaa waxa u yimid saxaabadiisa qaar kamid ah markaas waxay dhaheen nabi ilaahayow tawaafka waa lagu sheegay quraanka iyo kacbada in la tawaafo sa'igiina lama sheegin maxaa dhacay sa'iga ma dambiya ku jira markaas ilaahay wuxuu yiri inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ayadu marka waxay daboolay su'aashi saxaabada nabiga qaarkood waxa kale Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka sugnaaday sida saxiixa ku jirta inay tiri Aisha radhiyallahu ta'ala anha nimankii reer ansaareed ayaa waagi hore markay xajid tagaan ay waxay isdii jireen waxa dambi ah oo ay dhibsa jireen inay sa'iga sameeyaan Safa iyo Marwa inta u dhaxayda ku saciyaan markaas Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waxba dhibsanina dambiya idin ka soo gaaraan haysdiinina sa'iga Safa iyo Marwa la saciyo wax dambiya ma lahe تعبيرك marka saasa keenta leeyahay waxa kale oo la sheegaa labada buurood xilligii Makka ay haysteen kufaaru Qurayshtu in laba sanam ay kala ooli jireen labada sanamna lagu dawaafi jiray saxaabadu marka waxay og yihiin meeshan asnaamtii ooli jirtay markaas xoogaa saciga qaarkood dibsaday oo waxay dhaheen meeshan waa meel lagu siyaaro jiray oo lagu barakeysan jiray asnaamta ee seen yeelayna markaas Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ala kulli sa'iga Safa iyo Marwa la saciyahi inta u dhaxaydahi waa rukni iyo tiirarka xajka kamida sidoo kale tiirarka umrada kamida waxaana sacigaas la sameey kara oo kaliya hadaad ama xajinayso ama aad umraysanayso asaga dawaafku meeshaas ku kala duwan yihiin dawaafka habeen iyo maalin mar walba ayaad kacbada dawaafi kartaa ama xaj ku jir ama umra ku jir ama xaj iyo umra midnaba ha ku jirine waqtigu habeen ha noqdo ama maalin ha noqdee fursad walba oo u heli karto kacbada inaad dawaafto waa ku banaanta inaad ku dawaafto laakiin Safa iyo Marwa sacigeeda waxa uu sameeynaa bas qof xaaji ah ama mu'tamir ah
الله مركو حيل إن الصفا بورتا صفا والمروة بورتا مروة من شعائر الله أي كمدهين فمن حج البيت قفك بيتك حجية مركة وبيتك إلهي يكعبد أقصد أسوي حاجية أو اعتمر أما عمريستا فلا جناح عليه كركي سوح دنبي معهن أن يطوف بهما إنه لبدو طوافه أو سعي كسمايو ولبدو أنتو لحيدا أو الصعود نبينا عليه الصلاة والسلام سعيان وكسرنا ذي وصفي مروة ويمد وأنا كسعي أنت لحيدا وحنا آخر آيادا مكو سعي بالله باي إن الصفا والمروة من شعائر الله كده من وحوري نبدأ بما بدأ الله به وعن كب الله بيننا ماشي الله وكب الله سبحانه وتعالى سعي وحال كب الله لفظ آياده ماشي وكب الله إن الصفا صفا لكب الله ومن تطوع قفك كرر صدا خيرا خير كرر صدا أو خير أن واجب كوهن قفك لي ماذا أما سعي أن واجب كوهن قفك لي ماذا حج سنة حجية سعي كان جودة قلية أما عمر سنة عمريستا ساس درتينا أسعي ياهي فإن الله إلهي شاكر ومتك الشكرين أياه قفكاس أو وحي أو ليمد أو وناجا وحكى بدن وأجر الله ومتك سينايا عليم الله وكي علمي بدن إن الذين كوي يكتمون قريناي ما أنزلنا وحي عن سودة من البينات حجوينك على العد علامته على العداء وعلامته النبي يول هدى هنونك أها يو أحكامتي كتابك التوراة كتيلي من بعد ما بيناه مركان شيغاس وعديني للناس ددك يريبن إسرائيل في الكتاب كتابك التوراة هيودح عديني أولئك كواس يلعنهم الله إلهي يا لعنضايا ويلعنهم اللاعنون هو كلاو وحل لعنضنا ويلعنضايا إلا الذين هو مركي لغا ريبو تابو توبه كيني واصلحوا هجاجي وحي فسهاديين وبينوا عديي وحي قريين فاولئك كواس اتوب عليهم الهي وحليه وكتوبه اقبلا وانا انغنا التواب وحنا همت توبه اقبل كبدن الرحيم ونحريست بدن سوره البقره اي وحي uga warantay wax ku saabsan ahlu kitaabka iyo xumaanada ahlu kitaabka iyo xumaanta yahuuda iyo iska daboreega yahuuda meeshan Allah wuxuu ku sheegay subhanahu wa ta'ala nimanka yahuuda ah oo calaamadii nabiga kaleey salatu wasalaam oo kitaabkooda tawraada ku yiila qariyay ahkaamti kitaabka tawraada lagu sheegay wax kamidana qariyay markii Allah subhanahu wa ta'ala sheegaas oo dadka u cadeeyo kitaabkooda ugu cadeeyay kadibna saas ku dhaqmay dadkaas inay yihiin kuwa lacnadan oo ilaahay oo lacnaday cid walba oo wax lacnadaahina ay lacnaday oo malaa'iktu ay kamid yihiin oo muuminiintu ay kamid yihiin kaliya waxa lacnadaas ka badbaada ilaahay subhanahu wa ta'ala cidii ayaa kamid oo tooba keenta oo nabiga rumayda kaleey salatu wasalaam oo wixii ay qaridana cadayda kuwaas ilaahay wuxuu leeyahay ana ka tooba aqbalaya الله مركو حيري إن الذين كو يكتمون قرينا ما أنزلنا وحي أن سودة جنو من البينات عضي معها نبي عليه الصلاة والسلام على مدينة العضينا يول هدى هنون أها من بعد ما مركي كدبنا قرينا يبيناه شيء آن عضيني للناس ذاتك أنو عضيني يريبن إسرائيل سجارة في الكتاب كتاب التوراة اللي يسوى عضيني أولئك كواساس كتل مامن يلعنهم الله إلهي يا لعنة ضايا ونحريستي سكر ديرينايا ويلعنهم اللاعنون كو wax lacnadana way lacnadaaya kuwa kale wixii leeyihiin ilaahay naxariistaada ka dheeray illa alladina kuwi mooyee taabu tooba keenay lacnadu ka dhicmayso wa aslahu hagaajiyana waxay haleeyeen wabayanu adeeyana waxay qariyeen qofku waa inay cadeeyo hay'ad shuruuda toobada waxa kamida qofku dambigii uu ku jiray oo ka tooba keenay oo ka dhaxbaxo هذا لما كانوا دنبق أقوين يكون إثنين وحقي قريين كدحبح دنبق سلك دحبح هنا ووحي لقريه أو لعديه فأولئك قوة أتوب عليهم وكتب أقبل إلهي وأنا أنونا التواب وحنا الله توب أقبل كبضن الرحيم ونحريس تبضن إن الذين كوي كفروا قالوا بيلاكي وما تود انت والحالهم كفار أي قاليهين أولئك قوة عليهم دشوا وحاهاتي لعنة الله إلهي لعنة ديس يا الملائكة ملائكة لعنة دوذا يا والناس أجمعين ضدك طن لعنة دوذا خالدين حالهم كواسكو كوارا فيها لعنة دحيدا لا يخفف ملفوضين أيو عنهم كواس حقو ذا ملفوضين أيو العذاب عذابك ولا هم من أهان ينظرون كوي لو كورنا أيو والله عقدك أيو وعذابك ديب لو قدك الله عشيه سبحانه وتعالى عدو البقو قالوا ذا كفر قال لماذا يحمان تاسنا كل متى
inay tahay cid lacnadan oo ilaahay uu naxariistiisa ka dheereeyay oo ilaahay uu lacnadaayo malaa'igta ilaahay ay lacnadayso dadka dhan ay lacnadayaan welibana dadkaas lacnada way ku waarayaan oo adduunyo aakhiraba waa la lacnada naarta ilaahayna way ku waarayaan cadaabkana ma laga fuudaynayo maadaama ay malcuuniin yihiin cadaabkana dib looga dhigi maaye horaa cadaabka laga gelina allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaa saa ku tilmaaman oo gaaloobay gaalnimana ku dhintay calayhim dushooda waxaa ahaaday lacnatullaahi allah lacnadiisii iyo walmalaa'ikati malaa'igta ilaahay lacnadoodii iyo wannaasi ajmaciina dadka dhan lacnadooda ayaa korkooda ahaatay khaalidiina xaal ayihiin kuwaas weliba kuwii ku waarayo ku nagaanaya fiihaa lacnada dhexdeeda iyo naarta jahannamo lacnada ka dhalanaysa dhexdeeday ku waarayaan laa yukhafafu mana la fududaynaya ilaahay yidhi canhum dadkaas gaaladahoo gaalnimadana ku dhintay alcadaabu cadaabka ma laga fududaynayo iska dhaaf in laga saare walaa hum mana ahaanin yundaruuna kuwa loo koranahoo loo cagdhigahoo cadaabka wax yar laga daahina anke ma ahaanin isla markii qiyaamaha ay tagaanba cadaabka hore laga gelina wa ilaahukum dadu ilaahiinuna iyo macbuudkuununa ilaahun waa macbuud oo waaxidun keligiisa laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudahu ma jiro ilaa huwa asagaas mooye arraxmaanu waa allah raxmaanka ilaahiinu arraxiimu waa allah raxiimka aayaddan macnaheedu waa laa ilaaha ila allahu macnaha ay leedahay ilaahina subxaanahu wa tacaala laa ilaaha ila allahu macnaheeda qur-aanka wuxuu ku soo celiyey meelo fara badan maxaa yeelay waa qasadkii ambiyada ilaahay u soo diraayey sidoo kale waa qasadkii loo abuuray dadka iyo cirarka iyo dhulalka iyo jannada iyo naarta allah marka wuxuu leeyahay wa ilaahukum dadow ilaahiinu iyo macbuudkiinu iyo midka cibaadada idinkuluhu ilaahun waa macbuud oo waaxidun keligiisa asnaam iyo ilaahay cidaan ahayn in allah cibaadadiisa lala siiyahay wax bannaan maaha laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudahuna ma jiro ilaa huwa allahaas mooye arraxmaanu allah raxmaanka weeye ilaahiinu oo arraxiimu haddana raxiimka ah cid walba marka ilaahay keligii caabud adoo muwaxidanaad dhimo qof walba ha dhimanin adoo mushrigahoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay haddaad saas adoo ku tilmaaman aad dhimatana wixii kugu dhacaadaa isku dhigay درسينا يا عشر كينونا ما أنت الكاس النجوم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafi